السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنتي وعن أو وناكسن إخيرتا هودا نغلا xidhiidhay meel kastoo aad joogtaan wararka aan inii hayno waxaa ka mid a madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan mudane muuse biixi ayaa waxa uu sheegay asagoo wariyaasha la hadlahaya in ay doorashada uunsa ku darsan karin wuxuuna sheegay arrinkaa inaysa diyaar aysan hadda u ahayn laakiin mucaaradka ayaa ka badbadinaya wararkeena kale waxaa ka mid a wasiirka maaliyadda soomaaliya mudane cabdiraxmaan beyle ayaa waxa uu sheegay lacagta hadda bangiga dowladda hore ay kaga tagtay in ay 6 bilooda soo socota ay ku filan tahay shaqaalaha dowladda iyo ciidamadaba wararkeena waxaa faahfaahinaya ishana ku hayay saaxiibka cabdi welcome soo dhawow maxaa ka jira dhinaca iyo somalilan oo maalmahan aan ku jirnaba buuq iyo xidhxidhitaan isqaqabsi uu ka taagnaa bal nooga falanqee waxaad ka hayso. horta mahada waa mahadsan tahay horta maamulka somalilan muuse bixi cabdi madaxweynaheedu uu hadlay wuxuuna dhahay meesha dhibaatadii ka jirtay iyo banaanbixii waan ka xunnahay wuxuuna dhahay wax aniga mas-uul ka ahi ma aha wuxuu dhahay marka aniga nabadgelyada diyaar ayaan u ahay mas-uuliyad ayaa naga saaran banaanbax markuu dhacay waa in lasoo wargeliyaa wayna soo wargeliyeen markayna soo wargeliyeenna wuxuu dhahay aniga waxaan dhahay isku keena aan isku imaano ayagana wuxuu dhahay way diideen way ka caroodeen markaas markay ka caroodeenna wuxuu dhahay howshooda ayay wateen marka wuxuu dhahay anaga banaanbax haddii la samaynayo haddii hantidooda iyo wax walba in anaga amniga naga saaran yahay waa inaan ka heshiinaa marka wuxuu dhahay muddo kororsigan iyo waxaan sheegayana aniga shaqo kuma lihin muuse bixina awood uma laha inuu muddo kororsado waxa la sheegayana waxba kama jiraan har cad ayaan la tartamay shalay maantana har cad ayaan la tartamayaa marka wuxuu dhahay waxaan dad kale ka diidayna ayaga kama yeelay wuxuu dhahay xisbiyada waan ixtiraamayaa ayaga iyo kuwa soo socda waa ixtiraama dhamahadow. okay muuse waxaa lagu eedeynhayaa in uu yahay sharci jabiye oo uuna yahay qofka sharciga ilaaliya ugu sarreeya ee dalka laakiinse waxay sheegayaan mucaaradku in isagu sharcigu uu iyo dastuurkii wixii uu qorsheeyey ee lagu ballamay ee la qortay meel la dhigay inuu isagu uu jebinayo doorashadii wuxuu isku dayahayaa ayay mucaaradku say hadalku dhigan leeyahay in uu dib u dhigo midda kale waxaa la sheegahayaa rag wasiira iyo xildhibaano xasaanad wata inay ciidamadu si xooga uga xadgudbeen oo amarna u adeegsadeen ay kaxaysteen oo hadda barhkood waxaa la sheegaya xitaa in loo diiday xanuuno ay la socdaan inay qabeen laakiin daawooyinka xitaa loo diiday xalay wiil baa hadlayay dhalinyaro uu sheegay aabihii inuu ahaa halgamayaashii hore ee somalilan ay ku faanaan nin kamid a inuu ahaa laakiin ciidamada booliiska ay taxaabeen xabsi ay dhigeen cudurka sonkortaana uu qabay xabsiga marooda jeexna loo gudbiyey inkastoo uu sheegay ciidamada asluubta meesha jooga inay daawadii u ogoladeen inay loo geeyo laakiinse marka hore uu hargeysa dhexdeeda gudaheeda ku jiray waxaa la diiday inaan booqano xitaa aan raashin u geyno gogol aan u geyno waxaa kaloo jira iyadana xildhibaano la xidhxidhay oo iyagana xasanad lahaa xildhibaano waxaa jira barkhad batuun oo kamid ahaa iyagana la dhaawacay marka madaxweynaha waxaa la sheegahayaa inuu si amar ku taaglayno xoog ah uu ciidamada ugu isticmaalahayo dadka shacabka iyo xildhibaanadaba iyo mucaaradkaba wararkaas muuse bixi maxaa ka jira wallahi horta muuse uu hadlay wuxuuna dhahay hadda arrimahaas hadda dhibka ma jiro doorashada mar hadday dhaceyso fikirkan ah in lagu kordhinayo ayagaa keenay anigana ma kororsan karo awoodna uma lihi doorashaduna way dhaceysaa waxba dhibaataana ma jirto muranka iyo dagaalka iyo qaylada la iska daayo ayagana ixtiraam ayaan u hayaa dowladnimadana waa muhiim waxaan waa wax dimuqraati oo weligeed soo jiri jiray wax dhibaataana iskuma qabno doorashaduna way dhaceysaa xaaladda hala qaboojiyo banaanbaxyada hala joojiyo dhibkana meesha ku dhamaada ayuu dhahay kolba dadka xirxiran iyo dadka la dhaawacan ilaaha bogsiyo kuwa xirxiranna kolba waa lasoo deynaa marka wada hadalku waxaa waaye hadda waa uu qabsoomaa laakiin weli weji ka weji iskumay arkin laakiin wuxuu dhahay aniga wax aan kororsan karo ma jiraan dhibkaasna ha yaraado banaanbaxna hala joojiyo isheeg November 13 ayaana noo balan ah hadduu ilaahay yiraahdo. okay waxaa u dhexeeya muxuu yahay differentiga u dhexeeya Soomaaliya iyo Somaliland Soomaaliya shalay waxaan arkaynay Faad Yaasiin oo eedeynhaya ninka lagu magacaabo Mahad Salaad uuna sheegahaya inuu dadlayo shabaabna uu ka tirsan yahay wuxuuna dhahay maxaad wax uga qabadan markii la weydiiyeyna waxaa xasaanad ayuu wataa waa nin xildhibaan ah saas darteed wuxuu yidhi waxba kama qaban karno marka Soomaaliya xildhibaanadii uu leeyahay ninka sirdoonka dembi cad baan ku haynaa oo weliba dembiga maxaan ku dhahaa argixisada caalamka dhanba laga aqoonsan yahay lagu eedeeya waxba laga qaban waa laga cabsaday sababta looga cabsaday Somaliland nin iska mudaharaadahayo qori aan wadanin dad aan dilaynin socda kaliya uun lagu eedeyn karo dadka shacab buu kiciyey sababta loo xidhayo maxay tahay kaana looga cabsado horta xisbiyada mucaaradka aad isku abaabuleen dhalinyarada banaanbaxaysana waxaa warar qaldan ay ku hadlayeen marka
aad ayay u caatamayeen. marka qacaayadaas iyo waxyaabahaas oo kale nin wadanka madaxweynaha ka ah sharaftiisa waxbay u dhimaysaa, wax wanaagsan ma aha. marka banaanbixaysidna waxaa waye inaa horta way sheegeen oo soo gudbiyeen, laakiin haddii si dowladda ogoleyn inaa asgaabiso waaye. marka qasab ma jiro, dowladnimadana xoog maaha. muuse bixin haddii oo dad dhibaateeyey uu ku qaldan yahay, laakiin mucaaradka naftooda qaladka waxbay ku leeyihiin. waxaana fiican in si dimuqraadiyad ah loo wada heshiiyo, loona wada hadlo. iskhilaaf iyo waxaa waye isjiid ma fiicno. dhanka soomaaliya haddaan fiirinana waxa ka jiray wax difference malaha, soomaalida waa isku mid. mahad salaad iyo waxay ayaga lagu eedeynayna waxay run iyo been ka ah ma naqaano. marka xildhibaankana waa la qaban karaa. qalad hadduu gala xataa ninkan qalad gala xildhibaan waaye dadoo dila hataa lama sii deynayo. waa qasab in la qabtaa, sharciga ayaana dhigayo. okay, haddaan dhinaca iyo soomaaliya aan u leexano, wasiirka maaliyadda wuxuu sheegay inuu lacag ay akoonka dowladda hore kaga tagtay 6 bilood oo soo socotana inay maareyn karaan shaqaalaha dowladda iyo ciidamada. caalamkana intaa kaalmay la sugahayaan, inay kaalmay ka sugahayaan inay soo gaadho. ayadana maxaad warka haysaa? maada horta waa mahadsan tahay. wasiir Bello wuxuu sheegay in dowladda Soomaaliya akoonkeeda ay ku jirto lacag ku filan 6 bilood oo hadda sanad ka dhiman. laakiin wuxuu dhahay haddaan wax u baahnana wax sasa ma ah, waa wax la maareyn karo. marka dowladnimada waa wax muhiim ah. wuxuuna dhahay hadda ciidamada mushaaraadkooda iyo meel walba mushaarkooda waan bixin karnaa, akoonka ayay noogu jirtaa. inkastoo sanad iyo 8 bilood aysan soo gaarin lacagii kabka iyo miisaaniyadda ahaa oo dowladda lagu caawin jiray, maadaama doorashooyinka qallalaas ay ka jireen. dowlad walba markay doorasho iyo waxgelaysana waa lagu sameeyaa. waxaas waa wax iska caadi ah. sababtoo doorashooyinkaasi dartooda loo joojiyaa, inaan lacagta lagu kambeyn garin ama dhibaato qaab qaldan loo isticmaalin ayaa loo joojiyaa. laakiin wuxuu dhaha anaga in ka badan ayna la haysto sanad iyo 8 bilood wax miisaaniyada nama soo gaarin. laakiin ugu dambeyn wuxuu dhaha hadda akoonka waa noogu jiraa lacag 6 bilood nagu filan, laakiin waa uga baahanaa caalamka miisaaniyadda inayna soo gaarto oo wax kale inay noo imaan doonaan waa rajeynaynaa. marka lagu dhawaaqo ra-iisul wasaaraha cusub oo asagana saacadaha soo socda in lagu dhawaaqo ay u badan tahay. okay, kolley waxaan qiyaasinaa dowladda hore in ay ciidamada mushaarkoodana ay bixin jirtay inta ay xilka ay haysan weli cabasho ayna imaanin. haddana la sheegahayo in 6 bilood lagaga tagay lacag ku filan oo 6 bilood ay kusii samayso intii caalamku wixii kaalmi ugu talagalay dowladda cusub uu kasii daynaya inay kusii simahayaan. maanta waxaa la sheegahayaa saacadaha soo socda in ra-iisul wasaaraha lagu dhawaaqi doono dalka oo mudane xasan sheekh maxamuud ku dhawaaqi doono. ra-iisul wasaaraha ayaa loo badan hayaa wax hadda kusoo gaadho oo magacaabis ah oo ragoo loo badan hayo oo laleeyahay hebel iyo hebel baa laga dhigahayaa. miyaad adu la socotaa? wallahi horta Soomaaliya ra-iisul wasaaraheeda qarka ayuu saaran yahay. haddaana maanta lagu dhawaaqina caawa lagu dhawaaqaa, biri inuusan gaari doonin ay la tahay. marka sababta waqtiga loo asteeyay 30 biri xasan maxamuud wuu cunay, waxayna u badan tahay maanta in lagu dhawaaqo ama ilaa caawa. marka ra-iisul wasaare hadda rasmiya loo sheegay ma jiro, laakiin wararka la saadaalinayo waa sida aan shalay u sheegnay. xamse cabdi baran la yiraahdo oo Jubbaland ka soo jeedo, Cabdiweli Gaas oo asagana Puntland ah, iyo Saciid Cabdullaahi Dani oo asagana Puntland ah. saddexdaas qofood ayaa weli ku jira wararka. haddii uusan madaxweynaha arrintan tala soo jeedinta iyo la tashiyada faraha badnaa uu dhameeyey, haddii uusan ka dhex bixin oo go-aan kale intuu qaato qof kale meel kala soo bixin, hadda dadka loo saadaalinayo saddexdaas qofood. marka saddexdaas midkood in lagu dhawaaqo. haddii laakiin madaxweynaha oo waxaa la yidhaha la tashiyadaa ku batay, la tashiyadaas haddii ay ku badiyaan oo ku waalaan inuu ka dhex baxo qof kale meel ka keensada laga yaabaa. okay, kaasi wuxuu ahaa saaxiibkay cabdi badana falanqeeya siyaasadaha ee Soomaaliya iyo wixii warar oo naga soo cusboonaaday. kheyrta hawada nagala socotay meel kastoo aad joogtaan waad mahadsantihiin. haddii aad horay noola sii socotay ku mahadsanid dhegeysigaada. haddii aad nagu cusub tahayna waxaan ku leenahay page-keena like iyo share iyo subscribe intaba ku dhufo YouTube-ka. waadna mahadsantihiin.